waxaa weli noo socota sheekadii ninkii taajirka ahaa iyo cirfiidkii. habeenkii labaad markii la gaaray ayay Dunyazaad ku tiri walaasheeda Shahrazaad, abaayo maad noo sheegtid oo aad noo dhammaystirtid sheekadii ninkii taajirka ahaa iyo cirfiidkii iyo wixii kala qabsaday ninkii odayga ahaa iyo deeradiisa. markaas ayay Shahrazaad tiri, jacayl iyo sharaf ayay ii tahay inaan idin dhammaystiro haddii uu boqorka ii idmo. ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. mahadsanid. markaas ayuu boqorkii oo mar horeba sheekada isku sii diyaariyey yiri, noo wad sheekada oo dhammeey. markaas ayay Shahrazaad tiri, waxaa i soo gaaray boqorow. markii uu odaygii arkay in dibiga uu oynaya ayuu ninkii xoolaha uga mas'uulka ahaa ku yidhi, war dibigan iga wad oo mid kale bal ii keen. cirfiidkiina wuxuu la yaaban yahay sheekada yaabkeeda iyo siday wax u socdaan. ninkii odayga ahaa wuxuu yidhi, sayidkii jinniyadow, waxaas oo dhan markay dhacayeen naagteeda wayna daawanaysaa, waxayna leedahay dibigan qal wuu buuran yahay ee qal iyo waxa la mid ah. laakiin aniga dibiga eegmadiisa markaan ka naxay ayaan iska sii daayay, waxaana ku dhahay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa, dibigan iga wad, waan ka yaabanahe. subaxii markii la gaaray waxaa ii yimid ninkii xoolaha ii qaabilsanaa, wuxuuna igu yidhi, bishaarayso. markaas ayaan waxaan ku dhahay, maxaa dhacay? wuxuu igu yidhi, shalay markii aad dibiga iga wad igu tiri, waan waday waxaan geeyey guriga waxaa ii joogto gabar aan aniga dhalay oo iyadoo yar sixirka baratay. markii aan dibiga guriga geeyey oo ay aragtay wejiga ayay daboolatay, kadibna qososhay, haddana oysay. markaas ayay igu tiri, aabbow, maxaad noogu soo gelinaysaa nimanka ajaanibta naga ah anagoon ogeyn? anigoo yaaban ayaa waxaan ku dhahay, aaway nimanka aad sheegayso? middeeda kale maxaa la qososhay oo haddana la oysay? waxay igu tiri, dibigan aad u jeeddo waa wiilkii sayidkaaga, wuuna sixiran yahay, waxaana sixirtay naagtuu aabbihiisa qabo. taas waa sababta aan u qoslay. sababta aan la ooyeyna waxay tahay lo'dii la qalay waxay ahayd hooyadiisa. aniga markii aan hadalkaas gabadhayda ka maqlay waan aamini waayey, adiga ayaan ku imid. markaas ayuu odaygii yidhi, jiniyahow, markii aan maqlay hadalkii ninkii ii qaabilsanaa xoolaha ayaan degdeg gurigiisa ku aaday, waxaana u tagay gabadhiisa, waxaana weyddiiyey, marunbaa waxa aabbahaaga uu ii sheegayo? markaas ayay igu tiri, haa, waa runtayda, dibigan waa wiilkaaga, waana beerkaaga gabalkiisa. aniga waan iska ooyey, waxaana gabadhii ku dhahay, haddaad wiilkayga sixirka iiga furto waxaan ku siin doonaa maalkayga oo dhan. markaas ayay gabadhii igu tiri, aniga maalkaaga dan kama lihi, 2 sharuud ayaan wataa. haddaad ii samaynayso wiilkaaga sixirka waan ka furi doonaa. shardiga koowaad wuxuu yahay inaad wiilkaaga ii guuriso. kan labaad wuxuu yahay in aan naagtaada sixiro, waayo kama aamin qabo dhagarteeda. markaas ayaan gabadhii ku dhahay, intaas aad sheegtay waan kuu samaynayaa, waxaana kuu sii dheer inaan ku siiyo hantidayda oo dhan, naagtanna sidaad doontid yeel. markay hadalkayga maqashay ayay waxay soo qaadatay dhar yar oo meesha yaalay, waxayna ku shubtay xoogaa biyo ah iyadoo wax ku akhrisay. kadibna biyihii ayay waxay ku fardhisay dibigii, waxayna dhahday, dibiyahow, haddii allah adoo dibi ah uu ku abuuray, ha isbeddelin oo dibigaaga iska ahow. haddiise aad sixiran tahay, ku soo laabo abuurkaagii hore, idinka ilaahay. markaas ayuu dibigii dhalaalay, wuxuuna isku beddelay insaan. markaan arkay in uu wiilkayga yahay ayaan isku duubay, waxaana ku dhahay, alla ayaan kuugu dhaarsheey, iiga sheekay siday wax u dhaceen. markaas ayuu sheekadii bilaaway ilaa dhammaadka iiga sheekeeyey iyo waxay samaysay naagtaydii in adeertayda ahayd. kadib ayaan wiilkii gabadhii u guuriyey, iyadana waxay sixirtay naagtaydii oo deeradan isku beddeshay. anigana waan iskaga soo tagay dhulkaas oo dhan si ay wiilkaygii iyo gabadhaas nabadgelyo ugu noolaadaan. anigoo jidkaan maraya ayaa waxaan arkay ninkan meesha cidlada ah keligii fadhiya oo oynaya. kadibna markaan waraystay ayuu qisadii qabsatay iyo siday wax u dhaceen iiga sheekeeyey. ee jiniyahow, hadday sheekadeeda ku cajabgelisay, ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ii hibey. markaas ayuu jiniga la yaabay sheekada ninkan odayga ah iyo deeradii ka dhaxaysay, wuxuuna ku jeestay deeradii asagoo yidhi, marunbaa wuxuu sheegaya odaygan? markaas ayay madaxa ruxday deerada iyadoo ula jeeday, haa. wuxuu yidhi jinigii, wallaahi waa sheeko cajiib ah, wayna ii cajabgelisay. marka ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel waan ku hibeeyey. markuu jinigii hadalkaas yidhi ayaa waxaa hadlay ninkii watay 2 ey, wuxuuna yidhi,
jiniyahow haddii aan kaaga sheekeeyo sheekadayda oo ay ku cajabgeliso ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ma ii hibaynaysaa wuxuu yidhi jinigii haddii ay ii cajabgeliso waan kuu hibayn doonaa. markaas ayuu ninkii labada ey watay sheekadiisa ku bilaabay sidaan sayidkii jiniyadow waxaad ogaataa in labadan ey ee ila socotaa ay yihiin walaalahayga aniga ayaana 3 ku ah aabbahayna wuu dhintay wuxuu dhaxal ahaan noogu tagay 3,000 oo diinaar waana qaybsanay dhaxalkii oo mid kasta waxaa ku soo aaday 1,000 diinaar aniga qaybtaydii waxaan ku furtay dukaan aad u qurux badan oo aadna u weyn walaalahayga xoolahooda way la safreen anigoo ugu digay safarka iyo dhibkiisa waxayna maqnaayeen muddo sanad ah laakiin waxay soo laabteen iyagoo gacmo maran oo waxba haysan waxaan ku dhahay waan idiin sheegay in safarka dhibaatooyin uu leeyahay ee maxaad u safarteen markaas ayay igu dhaheen waa qadar alle maanta waxba ma haysano hadalna waxba nooma taraayo markaas ayaan waday waxaan geeyey dukaanka anigoo dhar iyo cuntaba siiyey kadibna waxaan ku dhahay imaqla waan isla shaqaysanaynaa oo ganacsi ayaan sii wadaynaa sanadkiina mar ayaa la xisaabinayaa wixii faa'iido ee aan helno waana kala qaybsanaynaa markaas ayay iga oggolaadeen muddo sanad markaan shaqaysanaynay oo faa'iido fiican helnay ayaa waxay igu dhaheen aan safarno waxaa laga yaabaa inaan soo faa'iidno balse waan ka diiday wixii saas la ahaadaba iyagana maalin kasta igu hayaan aan safarno ayaa markii muddo ka soo wareegatay oggolaaday hadalkooda waxaan xisaabiyey hantidii dukaanka taalay waxayna noqotay 6,000 oo diinaar markaas ayaa waxaan ku dhahay lacagtan waan kala qaybinaynaa 3,000 waan qaadanaynaa 3 soo hartayna meel ayaan ku duuganaynaa si aan haddii hadhow aan soo khasaarno aan ugu baxsano midda kale way iga oggolaadeen kadibna waan safarnay aniga iyo labadan wiil ee ila dhashay waxaan horay u sii qaadanay lacagtii 3,000 ahayd labadii wiil ee ila dhashay jiniyahow waxay ahaayeen kuwa aad xaasid u ah aadna way ii dhibi jireen laakiin aniga waan u dulqaadan jiray maadaama ay walaalahayga yihiin kadibna waan safarnay anagoo muddo bil ah safarkii ku jirna ayaa markii dambe tagnay magaalo aad u camiran markaas ayaan badeecadii aan wadanay suuqa u iibgeynay waxaana halkii diinaar ka faa'iidnay 10 diinaar kadibna waxaan go'aansanay inaan safar kala galno maalintii aan safarka gali lahayn maalintii ka horaysay anigoo keligayga xeebta maraya ayaa waxaan xeebta ku arkay gabar jaariyad ah oo aad u qurux badan markaas ayay igu tiri intay ii soo dhowaatay walaalow waxaan kaa codsanaa inaad ii guursato oo aad baladkaaga ii wadato waxaan kuu hibeeyey naftayda ee macruufkan ii sameey waxaa laga yaabaa inaan abaalkan maalin uun kuu gudo markaan hadalkan maqlay aad ayaan ula yaabay anigoo ka naxay in gabar keligeeda meeshan cidlada ah joogto iyo daruufta ay ku jirto markaas ayaan waday waxaan u soo iibiyey dhar aad u qurux badan anigoo sidoo kale markabkii safarka meel qurux badan ugu diyaariyey waana guursaday kadibna safarkii ayaan galnay laakiin gabadha waxay ahayd gabar aad u furfuran dabeecad wanaagsan markaas ayaan aad u sii jeclaaday oo qalbigayga dhan iyadaa buuxsatay heer waxaan gaaray aan habeen iyo maalinba iyada ag fadhiyo waxaana ka mashquulay walaalahayga markaas ayay aad iiga maseereen iyagoo xaasidnimo ii qaaday waxayna iga xasidaayeen hantida alla ii barakeeyey iyo gabadhan aadka u quruxda badan ee alla i siiyey markaas ayay sheedaan naclad ha ku dhacdee xumaato u qurxiyey iyagoo go'aansaday inay i dilaan kadibna hantidayda oo dhan keligooda la wareegaan markaas ayay habeenkii dambe ii imaadeen anigoo hurda markaas ayay intay i soo qaadeen badda igu tuureen laakiin markay xaaskayga shanqartii ku soo kacday ayay aad u xanaaqday iyadoo isku beddeshay cirfiid aad u weyn waxayna isku soo tuurtay biyihii badda iyadoo iga soo bixisay kadibna waxay i geysay jasiirad cidla ah cabbaar ayayna iga maqneed kadib ayay igu soo laabatay markay imaaday ayaan weydiiyey adiga yaa tahay sideena wax u jiraan markaas ayay igu tiri aniga waxaan ahay xaaskaaga halkanna aniga ayaa ku keenay badda kaa soo saaray waxaana kugu tuuray walaalahaaga idin alla ayaad ku badbaaday waxaadse ogaataa inaan aniga ahay gabar jin ah markii ugu horaysay ee aan ku arkay ayaan ku jeclaaday waxaana kugu jeclaaday iimaankaaga iyo dacadnimadaada waxaana ahay gabar mu'minad ah oo allah iyo rasuulkiisa aaminsan laakiin hadda aad ayaan u xanaaqsanahay xanaaqaygana ma degaayo anigoo ciqaabin oo aan dilin kuwii badda kugu tuuray markaan hadalkeeda maqlay markii ugu horaysay waan ugu mahadceliyey maadaama ay nafteyda badbaadisay laakiin waxaan ka codsaday inaysan walaalahayga dilin
waxaanu u sheegay inaan ka samri karin wax kastoo ay igu sameeyaan ay yihiin walaalahayga laakiin way iga diiday waxayna igu tiri isla caawa ayaan isku soo wada duminayaa iyaga iyo macalmaraakiibtooda la soco habeen dambe qaybta afraad sheekada xiisaha badan ee kun habeen iyo habeen